waxaan la kulannay xubnaha wafdiga ururka SNM oo aan wax ka weydiinay amuuraha ururkaasi iyo weliba iyagoo jagooyin ka haya Somaliland waxaana ay uga soo qayb galeen shirka dib u heshiisiinta ummadda Soomaaliyeed ee magaalada Addis Ababa ka socda goobjoog ahaan waxaana ka mid ah Abdi Yusuf Ducaale oo ku magac dheer Boobe waxa weeye xoghayaha warfaafinta ee ururka SNM isla markaana ah wasiir dawladeedka arrimaha dibadda waxa kale oo kala soo qayb galay mudanayaal kale oo goobjoog ka ahaanaya doodan iyo faaladan ku saabsan ururka SNM waxaana aan su'aasha horeysa jecelahay inaan weydiiyo Abdi Yusuf Ducaale Boobe shirkan baad uga soo qayb gasheen Boobe goobjoog ahaan shirkan dib u heshiisiinta ummadda Soomaaliyeed kolka aad sidee kuugu muuqataa midnimada Soomaaliyeed iyo shirkan badoodaha ka dhacay bismillahir rahmaanir rahiim annagu shirkan iyo kii ka horeeyay bishii January la qabtay goobjoognimo ayaan uga soo qayb galnay ajendaha hore ee laga hadlayay iyo ajendahan dambe midna annaga nama ku soo hadaan nahay SNM iyo Somaliland waa go'aan gaarnay meel kasta lagu hayo arrin Soomaaliyeed ba inaanu joogno si toosan iyo si dadban si ay noo khusayso shirkan markaan nimid sababaha ugu waaweyn ee uu nimid annaga goobjoog ka ah waxa weeye inaanu soo gurmano walaalahayaga Soomaaliyeed ee muddada isleenayay ayaan darradu ay tahay dagaallo aan dhici jirin markii uu Maxamed Siyaad Barre dalka ka talinayay ee dulmiga loo dagaalamayay in dagaalada inteedii badneed dhacayso iyo Maxamed Siyaad Barre meesha ka maqan yahay shirkan aan ka soo qayb galay shalay doodihii ugu kulaa waxay ka dhaceen midnimada Soomaaliyeed oo uu ninba soo arko heesa badan meesha laga qaadayay Soomaaliyeed toosa axyaa wadani waxyaabo caynkaasa heesaha midnimada Soomaaliyeed loo qaadayay way badnaayeen meel baana ka soo baxayeen Hargeysa ka soo baxayeen heesaha midnimada Soomaaliyeed loo qaadayay waxa ka mid ahaa shantooda soo heshaday wacnayda calan inay wadaagaan ee wanaagsanayda midnimada Soomaaliyeed marka laga hadlayo waxa laga hadlayaa xididka sanjeeska ee ku taala calanka buluusiga ah lixdankii markii aan la midoobayno Muqdisho kalgaclan Muqdisho u qabno ulamaanaan midoodin waxaan ula midoonay annaga raadin Soomaaliyeed riyadaas riyo tagtay ayay noqotay dagaalkii 77 jiray marka shanta laga hadlayana meelo badan ayaa laga hadlayaa midnimadu ma aha labadii gobol ee lixdankii midoobay annaga shantaasee noo tahay imikii haatana gobonnimada lixdankii aanu helay aanu la doonanay walaalahayo annaga u jeednay in shanta la mideeyo haddii aanu Somaliland nahay soo jeedintii ka soo baxday shirkii guurtida beelaha waqooyi ee lagu qabtay Burco bishii May 19 ee kalfadhiga labaad ee caadiga ahaa golaha dhexe SNM uu isna ogolaaday ayay ku samaysatay Jamhuuriyadda Somaliland shirkan waxaanu ka cadaynay dib u heshiisiinta Soomaaliyeed in annagu aanan cidna marti uga ahayn la noqoshada gobonnimadeeda ee aanu ogeysiinayno oo shirka haddaanu Somaliland lahayn inaanu la noqonay gobonnimadeedii oo beelihii Somaliland ay maanta doorada ku shirtay yihiin waxba isla waayeen dadka Soomaaliyeed ee Soomaaliya jooga dadka halka jooga ee shirka u yimid ee jabhadaha sheeganaya in yar ayuun baa dalka gudihiisa ka timid intooda badan waxay ka yimaadeen hudheelo ku yaala Nairobi ama Suudan ku yaala ama London ku yaala ama Rome ku yaala markuu shirku dhamaadana way ku noqon doonaan Soomaalina uma baahna hadallo qurqurux badan oo halka laga akhriyo ama midnimo maran oo lagu dhawaaqo waxa ay andaraa Muqdisho maanta qaybsan oo khadka cagaarka ku yaalo ee dintay intii Maxamed Siyaad Barre maqnaa intii diniyay ee kaliya ku dhawaaqay madaxweynenimadu oo halkan kaga dhawaaqay midnimada Soomaaliyeed waxaanu leenahay midnimada Soomaaliyeed way furan tahay oo cidii ay khusaysaa ka wada hadlaysaa waa goorteed iyo goorteed maanta waxa u baahan badbaadin waa koonfur xamar marka la mideeyo ayaa la oran karaa dalhada beledii inaynu gaadhno soo harayno gaadhno Hargeysa Burcay Keylo annagu waxaanu door bidaynaa in la kala noqdo oo waanu noqonaa annagu waa naga ogeysiinay in si qurux badan oo si Czechoslovakia u kala noqotay iyadoo la xasleynayo loo kala noqdo si ay u furnaato walaalnimadu cidda door bidaysa iyo Islaamka in loo kala noqdo annagu diyaar baanu nahay dagaal nooma hadhin 12 sanadood baanu dagaalaynay miisaaniyo makfoon kuma aanan tigin madfa iyo xabad baanu meesha ku tagay abdiiran intuu socday madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Cabdiraxmaan Axmed Cali waxa la isweydiinayay inuu asiriyay in kala
iyada oo marka lagu eedeynay ururka SNM muddada uu hawsha soo hayay in uunan nabadgelyadii unan xasilinin imika maamulka dawliga ee Soomaaliland ka jira ma waxa bedeli doona dawladda in halka ka soo baxay markii ugu horeysa bisha saddexdeedii furitaankii shirka khudbadii uu ka akhriyay gudoomiyaha ururka SNM madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Axmed Cali ereygii ugu dambeeyay ama weedii ugu dambeysay ayaa waxay ahayd aniga madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland arrintii waxaa ku soo wareejiyey ergooyinka 150 ee halka fadhiya ee guursiga ah caddayn dambe ayuu madaxweynaha arrintaa ka bixiyey oo tirayd ku wareysteen ma ahayn iscasilaad waxay ahayd dhibaatooyin hore oo dalka ka dhacay oo waxyaabo badan maamulka la xiriiray ay ku socon waayeen sababaha ay socon waayeen iyo ka kala bixintood waxaa la doortay bishii May 1999 laba sanadood xilka hayn lahaa xilku wuxuu kaga dhamaanayaa bishii May 18 ururka SNM marka laga hadlayo ururka SNM waxqabadkiisa iyo waxqabad la'aantiisa aqligu wuxuu nasiinayaa inaan idin raalli ka noqonin haddii la yiraahdo 6 bilood ugu dambeeyay SNM waxay ma qabanin waxaan aaminsanahay SNM inay wax badan qabatay waxaan aaminsanahay SNM in waxyaabo sheegay qadiyo ay jiraan labada marka la isu dheeli tiro waxaan aaminsanahay waxay SNM soo qabatay ayaa badnaa waa run barnaamijkii loogu talagalay marxaladda kala guurka oo ay ka mid ahayd dastuurka la sameeyo oo ay ka mid ahayd xeerkii axzaabta in la sameeyo SNM oo dalka ka talisa may suuro gelinin inay hawlaha qabato taa macnaheedu ma noqonayso in 11 sanadood ama 12 sanadood ee SNM halgamaysada waxba la'aan laga soo qaado waxa lagu farxo oo diilo ah oo SNM guulaha ay gaadhay ka mid ah in maanta Soomaaliland ku shirsan tahay Boorame oo kii ka yimid laas qoray iyo kii laas aanay ka yimid iyo kii soo ka yimid ay joogaan nin soo lugayo nin dawlad soo raacay nin gaari soo raacaba ay shirsan yihiin oo nabad yihiin horta waa guul SNM leedahay waxa guul SNM leedahay dhawaaqyo badan oo meelaha ka bixi jiray oo ku saabsanaa inaan Soomaaliland dooni isu taagi karin inaan gobonnimadeedii la noqon karin waxyaabo caynkaas dadkii ku hadaaqayay oo dhamina inay maanta Boorame joogaan iyaduna waxay ku darsanaysaa oo ku jiraysaa guulaha SNM annagu magaca SNM ku hadlaynaa annagu qorayno waxyaabo naga baaqday ay jiraan sababo ay baaqdeenba waxaan aaminsanahay inaan soo gaarsiinay meel halkaana ay dadku ka sii qaadi doonaan oo ay ku dhisan doonaan waxyaabaha ka dhiman annagu haddaanu SNM nahayna aanu dib isugu noqon doono urur ahaan ishabeyn geli doono si aan noogu suuro gasho marka tartamada doorashooyinka yimaadaan inaanu axzaabta samaysantaa la tartan gallo kolka booba diyaar baad tihiin dawlad laga soo dhiso shirka Boorame shirka Boorame waa shir guursiyo waa shir beeleed maadaama aan SNM iyo Soomaaliland cidina u maqnayna uu ka weyn yahay shir beeleed oo wuxuu noqonayaa shir ay Soomaaliland ku wada tashato marka wax kastoo naga qabiyaaba shirka waan ku falanqayn karnaa ama dhexdiisa aan ku falanqaynaa ama dibadda anagu heshiis ku ah aan gudaha la nimaadno adigoo wasiir dawladeedka arrimaha dibadda halkeeda aqoonsiga jamhuuriyadda Soomaaliland ku maraya wallahi anigu raayiyan iskumaba dhiba aqoonsigaasoo horta dadku inuu noolaadin baa muhiim ah in aanu safiir geysano Talyaaniga ama London waxaanu ka doorbidaynaa inaan Djibouti iyo Ethiopia iyo Cadan iyo Soomaaliya aan si wanaagsan ula noolaano xidhiidh wanaagsan la yeelano taasaana aqoonsiga anaga waxaad naga warantaa dhibaatooyinka xagga xanuunada ee imika jiri kara Soomaaliland iyo gargaar wixii aad u baahan tihiin iyo baaq wixii aad adduunka u siin lahayd sida ururada samafalka oo kale waxay xanuunada dalka burburay ee muddada ay ka maqnaayeen hay'adihii shaqeynaya caafimaad xanuunada ugu badan kulliga ee taagnaa kanaacadu waa ka mid weeye ama ha ka dhacdo gudanka iyo xeebta oo awalba ay caado ahayd inay ugu badnaato meelaha barkadaha hawdka ku yaala laakiin si kulliga kal hore waxaa loogu darnaa waxay ahaayeen kii ka dhacday xuduudda laga soo bilaabo tagoo taale ilaa intaa xuduudda oo dhan iyo xeebaha oo dadka aada u leysay maadaama aanu dadka xoojiyaa oo muddo badan haws ku noolaa ama ku dagaalamaya ama dhaawacooda ku haystay ahayn adkaysi fara badan iyo la qabsi duruufahaasa waanu develop garaynay oo waanu lahayn laakiin kii waa waxyaabaha ay dhibaatadu ka taagan tahay annaga haddaanu Soomaaliland nahay uma baahnin cunto naloo keeno uma baahnin
in badan baanu qoraal ku bixinay in badan baanu ku soo saarnay qoraal ku soo saarnay waxaan u baahannahay mashaariic horumarineed iyo dibudhis naloo dhisay infrastructurkii naga burburay oo ama isgaadhsiin ahaa ama wadooyin ahaa ama biyaha ahaa ama ahaa electriga xakiisadii lagu shaqaynayey laakiinse annagu uma baahnin raashin naloo keeno laba sababood baanaan ugu baahnayn inaanay inamadeeda aanaa weli ka adkaanin u hanqaltaagin boobkiisa oo aan nalagu ceebeyn iyo inaanaan niyadsadinin beeralayda dadaalaysa ee wax soo saar ku mashquulsan oo maanta galaankii haluurka ahaa gabiile iyo boorame 300-400 oo shilin ayuu ku tagaa koobkaahu la mid yahay khudradda waanu suuro gelinay inaanu soo gaadhsiinay ilaa jabuuti marka annagu uma baahnin gargaar cunto noo keene waxaanu u baahannahay in wax nalagala qabto sidii dib loogu dhisi lahaa wixii burburay iyo sidii mashaariic horumarineedna loogu samayn lahaa arrin kale oo aanu dadweynaha ogeysiinayno ama beesha caalamiga aan u sheegaynaaba waxay tahay iyaduna arrin murug badani ka taagan oo ku saabsan ciidamada qaramada midoobay ama UNIFEM ama UNITAS iyo sidii loogu fidin lahaa Somaliland waayihii ka taagnaa xamar ee qasbay in ciidamada la keeno waayihii dowladda ka taagnaa Somaliland meel ka taagan ma jirto markaas sahamada eegta SCS iyo hay'adaha NGOs ay sameeyaan nutritionka iyo nafaqada carruurteedu aad buu fiican yahay haddaan isqabsan lahayn horta cunto naloo keenayba ma jirto isqabsigaasina ma yaallo marka laga reebo inaan maalin dariiq istaaga sidaa daraaddeed annagu waxaanu leenahay baahi ciidan lagu keenaa halkan ma taalo taa macnaheedu maaha waxaanu ka soo horjeedsanaynaa go'aamada ka soo baxa qaramada midoobay ama golaha ammaanka ee qaramada midoobay haddii laga fursan waayo muddo 4 bilood ka horreysay oo gargaarka la keenaya ku xidhnaa in ciidamada qaramada midoobay la keeno dowladda Somaliland waxay ogolaatay dariga iyadoo warqadda saxiixinay dartiisa in 750 la keeno meelaha airboodada iyo dekedaha iyo aynkaasa warqadda ismad kitaani baa noo keenay muddo 4 bilood laga joogo maalinta uu keenay 2 saacadood buu nala joogay dibna ismad kitaani Somaliland uguma soo noqon inkastoo isagii fikir qaali oo martiqaad u signay in ay yimaadaan taasi noqon mayso inaan anagu diidanahay hadday ka fursan weydo oo lala jeclaado qaramada midoobay la jeclaadaan inay ciidamo keenaan Somaliland baaxadda iyo muddo ay ku joogaan xamar noogu iman maayaan waa aragnimadii ka soo baxday joogitaankooda koonfureed ama xamar iyo dhulka la midana waxyaabo badan oo ka hor aanu codsanayno ayaa jiri doona oo ku xiran joogitaankooda waxaanu doorbidaynaa ciidamada noo imanayaan aana tirayaa la ekaanin haddii ay yimaadaanba ay noqdaan qaar gacan ka geysta dibudhiska oo ama garoomada dayuuradaha iyo isgaarsiintooda nagala shaqeeya ama wadooyinka ama miinada dhulka aadka loogu aasay nagala saara kula yimaada wax la kala qorsay oo hay-adaha dalka ka taliya iyo hay-adaha qaramada midoobay ay isla garteen laakiin si ma noqonayno mana muhiim dad beesha adduunka go'aamada ay gaadho ka soo horjeeda